ciidamadaas oo u dabaaldegay sanad guurada ciidanka booliiska Soomaaliyeed halkaas xalfad sharaf iyo karaamad leh oo si fiican loo soo agaasimay oo ka dhacday dhammaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho iyo meel walba gobolada ah oo ku dabaaldegaya xaasaskooda iyo saraakiisha ay kulli dhammaan hambalyan leeyahay ciidanka daraawiishtu waxa weeye waa ciidanka awood badan aad u lahaan jiray oo ilaahay idinkiisa dana waa soo noqon doona daraawiish haddaan maqlo anigoo dhan waa jirircooda aad baa macnaa la soo halgamay aad baan u soo waxeeyey waxaan idin sheega madaxda gobolka madaxda dawladda maanta dii macnaa la howlgelin lahay shabaab ummaddiba gumaadeen howlahood ma dhaceen waa laga dhicin lahay muraalkoodana waa hayaan dawladdu waxaan ka codsanaynaa oo ka baryaynaa inaan gobol joognaa ogaadaane horta markii ugu horreyso inaan gobolladii joogno ha ogaadaane oo furun joogno ha ogaadaane sidaa darteedii dalkaana annakaas kale martina ku noqoni mayno daraawiishaad tihiin waddanka waxaad ka tihiin xuduudkiis inaad ilaalisaan shabaab inaad gumaadaan ood ka saartaan iyo waddankaana cadaaladda aad ku soo dabaashaan iyo qabyaaladaad ka dheeraataan maanta inta waxaan u dabaaldegaynaa 20kii bishii September oo shalay ku aadanayd maalin jimcaha ku soo aaday oo maalin cibaada baa maanta oo sabti ah laga dhigo 22ka bisha waa shalay waxaan dabaaldegaynaa waa maalintii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed 1943 ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu ahaa ciidan aad u qiimo badan ciidan tayadiisa iyo tiradiisa iyo shaqadiisaba aad ay u sareyso oo kuwa Afrikada madow aan ugu ciidan fiicnayn bay ahaayeen waa lafdhabarka dawladda ciidanka booliiska Soomaaliyeed wax kasta oo shaqo ah oo u baahan yahay qof ama dawlad ama cadaalad qolada fulisaawe meel kaste oo ciidamada Soomaaliya maanta ay joogaan ama ciidanka qalabka sida ama ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa looga dabaaldegaya waa maalintii aasaaska annagana waxaan u dabaaldegaynaa maalintaas